kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka qaybtan waxaan idinkula wadaagi doonaa guud ahaan wararkii caalamka ee 24 saac ee lasoo dhaafay Iran iyo Mareykanku waxa uu dagaal toos ah ku dhex maraya marinbiyoodka Hormuz iyadoo saacadihii lasoo dhaafay Mareykanku uu ku hanjabay in uu qabsan doono ama guud ahaanba la wareegi doono marinbiyoodka Hormuz. Iran iyo Mareykanka ayaa haatan waxa ay si weyn ugu hardamayaan dagaal ka duwan kii hore ee gacan ku haynta marinbiyoodka Hormuz iyadoo Trump saacadihii lasoo dhaafay uu jeediyay hanjabaad culus oo ku aadan in uu weerari doono kaabayaasha tamarta iyo korontada ee Iran haddii aysan Iran dib ugu soo laaban heshiiska. Dhinaca Iran waxay sheegtay in guud ahaanba uu dhammaaday heshiiskii iyo afgaradkii kala dhaxeeyay Mareykanka. Dhinaca Xuutiyiinta Yemen iyo waliba Sacuudigana wararka ka soo baxaya ayaa sheegaya in labada dhinac ay isu diyaarinayaan dagaal iyadoo laga cabsi qabo in guud ahaanba ay halkaa ka baxday xabad joojintii u dhaxaysay dhinacyadaas oo maalmihii lasoo dhaafay isweydaarsaday duqeymo. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal kusoo dhawaada Runmaal Media. aan ku bilownay saacadihii lasoo dhaafay marinbiyoodka Hormuz waxaa laga soo sheegayaa iskoorimaad toos ah inuu halkaasi ku dhex marayo ciidanka ilaalada kacaanka Iran iyo waliba ciidamada badda Mareykanka ee halkaasi ku sugan. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shalay sheegay in Mareykanku uu si rasmi ah ula wareegayo ammaanka guud ee marinbiyoodka Hormuz. maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ayaa u dhaqaaqday dhinaca marinbiyoodka Hormuz taasi oo sababtay in ciidanka ilaalada kacaanka Iran iyagoo oo adeegsanaya doomaha iswada ee isqarxinta iyo waliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weeraraan maraakiibtaas. warar ay Al Jazeera baahistay ayaa sheegaya in marinbiyoodka Hormuz saacadihii lasoo dhaafay iskoorimaad toos ah uu ku dhex marayay doomaha iswada ee Iran iyo waliba maraakiibta dagaalka Mareykanka. wararka ayaa intaa ku daraya in maraakiibta dagaalka Mareykanka ay halkaasi dib uga laabteen sabab la xiriirta miinooyinka tirbeelka ah ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran halkaasi ku aaseen. arrimahan oo dhan waxa ay imaanayaan xilli Mareykanka uu shaaciyay in marinbiyoodka Hormuz uu furan yahay dhammaan marka laga reebo dowladda Iran. dhanka kale dowladda Iran waxay sheegtay in marinbiyoodka Hormuz uu xiran yahay aysan jiri karin cid ka gudbi karta. laba markab oo shidaal sida ayaa dhawaan isku dayay inay marinbiyoodkaasi ka gudbaan taasi oo sababtay in labadaasi markab ay beegsadaan gantaalada iyo waliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran. hal qof ayaa la sheegay inuu ku dhintay oo ka mid ahaa shaqaalihii saarnaa maraakiibtaas. dowladaha Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ayaa ku eedeeyay in ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay carqaladeynayaan guud ahaan isu socodka. dowladda Iran ayaa saacadihii lasoo dhaafay sidoo kale waxa ay gantaale iyo diyaarado aan duuliye lahayn ku weerartay saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay dalka Bahrain. dalka Bahrain oo ah mid ka mid ah dalalka ugu yar caalamka ayaa waxa ay hoy u noqdeen gantaalada Iran maadaama uu xuduud badeed la wadaago Iran. sidoo kalena waxa uu dalka Bahrain martigeliyaa mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee Mareykanku ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe. dowladda Bahrain ayaa dadkeeda ugu baaqday inay galaan goobo ammaan ah maadaama dalka uu wajahayo xaalad amni oo aad u sareysa tan iyo markii uu dib u qarxay dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo waliba Iran. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu hanjabaado kulkulul u jeediyay madaxda iyo hoggaanka sare ee Iran isaga oo sheegay in Iran maalinta soo socota ee beriya uu weerari doono maalinta xigtana ay weerari doonaan halka toddobaadka xigana uu sheegay in ay weerari doonaan kaabayaasha tamarta korontada buundooyinka iyo wax kasta oo muhiim u ah nolosha dadka reer Iran. Donald Trump ayaa sheegay in haddii Iran aysan dib ugu soo laaban heshiiska uu guud ahaan burburin doono tamarta iyo waliba korontada Iran. hanjabaadan ayaana la mid ah tii uu Donald Trump u jeediyay Iran markii uu socday dagaalkii hore ee u dhaxeeyay Iran, Mareykanka iyo Israa'iil. Donald Trump ayaa hore uga hanjabay in haddii Iran aysan ogolaan inay Mareykanka wada hadal kala gasho dagaalka socda uu burburin doono kaabayaasha taasi oo dhalisay in la gaaro is-afgaradkii Maw. Iran ayaa mar walba ku adkeysanaysa in dagaalku sii socon doono haddii Mareykanku uu wado gardarrada uu ku hayo dhulka Iran. Iran dhinaceedu waxay taagan tahay inay iyadu xaq u leedahay inay maamusho marinbiyoodka Hormuz kaasi oo ay marto 20% saliidda ay isticmaalaan dadweynaha caalamka. sicir barar xoogan ayaa haatan laga dareemaya suuqyada ee caalamka gaar ahaan kuwa Mareykanka kuwaasi oo cadaadis ku saaraya madaxda ugu sareysa dalka Mareykanka
in lasoo afjaro xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka bariga dhexe iyo weerarka uu maraykanku ku hayo iiraan. dhinaca kana ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo warbaahinta la hadlayay saacadihii lasoo dhaafay ayaa sheegay in Iiraan haddii mar kale ay soo weerarto Israa'iil ay markan ka bixin doonaan jawaab aad u culus. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo cabsi badan ka qaba in Iiraan ay weerar ku soo qaado Israa'iil. Maraykanka ayaa ugu digay Israa'iil inay soo gasho dagaalka haatan u dhaxeeya Iiraan iyo Maraykanka. Israa'iil ayaa si weyn kaga cabsi qabta in magaalooyinkeeda ay mar kale hoy u noqdaan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ku harqinayaan haatan saldhigyada Maraykanku ku leeyahay bariga dhexe. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Benjamin Netanyahu u sheegay in haddii dagaalku uu ku soo biiro uusan Maraykanku difaaci doonin markan danaha Israa'iil. Benjamin Netanyahu ayaa ku dareynaya in gobolka bariga dhexe uu xaalad dagaal ku sii jiro ilaa laga adkaanayo ama la burburinayo dowladda Iiraan oo Israa'iil u aragto cadowgeeda koowaad ee dunida oo idil. Daabacay barta bulshada ee X ku sheegay in wejiga hadda socda ee weerarada ka dhanka Iiraan uu soo dhamaaday. sida ay sheegtay Centcom, howlgalka ayaa la soo gabagabeeyay 10kii habeenimo waqtiga Maraykanka waxaana lagu beegsaday bartilmaameedyo military oo ku yaala agagaarka maranbiyoodka Hormuz ee xeebaha Iiraan. ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in weerarada ay beegsadeen xarumaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan, awoodeeda ciidamada badda iyo nidaamyada difaaca xeebaha. howlgalkan waxaa loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, diyaaradaha dagaalka iyo maraakiibta dagaalka ee ciidamada badda ee Maraykanka. sida ay Centcom sheegtay, howlgalkan waxaa la fuliyay iyada oo dib loo soo celiyay go'doominta dhinaca badda iyo xeebaha ee Iiraan waxaana lagu soo gabagabeeyay muddo 7 saacadood ah. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ujeedadu weerarku ahayd in la yareeyo khatarta ay Iiraan ku hayso waa sida loogu yeero maraakiibta ganacsiga iyo shaqaalahooda. dhinaca kale ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku dhawaaqeen inay guud ahaanba ay burburiyeen raadeerada difaaca gantaalada iyo hawada iyo sidoo kale goobaha laga gano gantaalada ee Maraykanku ku leeyahay gudaha dalka Kuwait. qoraalka ayaa sidoo kale lagu xusay weerarka uu Maraykanku qaaday 4 saldhig oo ku yaala koonfurta Iiraan kuwaasi oo ay ka mid yihiin Baqaar Khamadi oo ku yaala magaalada lagu magacaabo Hawez iyo warshad biyaha macdanta soo saarta oo ku taala Dahraon gobolka Ilam. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in dayax gacmeedyada ee raadeerada difaaca gantaalada iyo hawada nidaamka difaaca hawada ee Patriot, saldhigga ciidamada Maraykanka ee Kuwait iyo goobaha laga rido gantaalada Mars ay dhammaantood bartilmaameed u noqdeen weeraro ay fuliyeen gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan. si guud xiisadda u dhaxaysa Maraykanka iyo Iiraan ayaa saacadii la soo dhaafay faraha ka baxday iyada oo ay dowladda Iiraan ku dhawaaqday inuu si rasmi ah u soo gabagaboobay heshiiskii ama is-afgaradkii u dhaxeeyay labada dhinac. guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa qaybtan. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad nala joogteen aad baad u mahadsantahay.